أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلى الله على نبي الله عبد الله رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه وسلم kulanti wanaagsan khayr sharafta leh waa sayid cabdiraxmaan oo mar kale idin la soo dhowaada akhyaaray hadduu ilaahay yidhaahdo maanta waxaynu ku hadlaynaa qayb kale oo ka mid ah taariikhda luntay ummadda soomaaliyeed waxaa jirtay inaan maaragtay buwaag badan akhriyey aad u baadhay waxyaalo fara badan raadiyey hase yeeshee waxyaalo badan oo muhiim oon maanta idiin keeni doono waxaan ogaaday in buwaagta taariikhda ay nimanka yurubiyaanka ka qariyeen oo ay ka reebeen dadka soomaalida taariikhdooda iyo asalkooda maaragtay haddaba hadduu ilaah yidhaahdo maanta waxaynu samaynaynaa waxaynu kaalmo ka raadinaynaa bal inay taariikhdeena luntay inaga caawiyaan oo wax naga caawiyaan waxaan la dhaho artificial intelligence AI excuse me raalli ahaada AI AI-gu waxa weeye waa set of informations oo computerno macnaha quantum computers saas oo kale ama high speed computers ay wax alla waxa sourciga ee internetka ku jira ka soo qaadaya qaarkood macnaha waynu geli doonaa waxay leeyihiin server iyagu gooniya ama warbixinta iyo waxaanay kuu soo gudbinayaan bilmatali markaad su-aal weydiiso waxaanay hadduu ilaahay kuu rooya kuu soo gudbinayaan waxa weeye waa waxay hore u ururiyeen waa waxay macnaha hore u ururiyeen oo serverkooda ku jira ama ay ku safegaraysteen systemkooda qaarkoodna waa live internetka hase yeeshee mar kasta way update gareeyaan oo qoraaladii hore marka waxa weeyaan waa buwaag cusub sida buwaagtii hore ee la oran jiray encyclopedia oo kale kutub urursan oo taariikhdii waxa ka sheekeynaya kow gadaalna waxa waaye nimanka reer galbeedka ayaa waxay u bedeleen wikipedia online-ka wikipediayadu waxa weeye waa galbeedka aad u kontroola hadduu ilaah kuu rooyo gaar ahaan nimankan bankariska ee koofiyad waxa dhan iskale waxa dhanba waa koofiyad yar lagama baxsan karo diintii iyo tawxiidka iyo xaqa iyo cilmiga runtaana dagaal bay kula jiraan hase yeeshee qofkaan aqoon waxan waxa weeye waxani waa bilow wanaagsan waa meel wax laga bilaabo wikipedia waa meel researchigaaga aad ka bilaabi karto macnaha anu waxaan ku qiyaasay waxooda kama badna fasalka sideedaad marka waxaad u baahan tahay secondary education haddaad wikipedia tahay waxbarasho dugsi sare ah ilaa jaamacad kolka laakiin aayadii markii jiray oo artificial intelligencegi jiray sida bilmatalan kan google ee la dhaho gemini kan kale la dhaho chat gpt hadduu ilaah kuu rooya microsoft miday leedahay kuwo kale miday leedahay kambaniyo badan baa le galbeedka waxaa dhacday qiyaastii adigu bil ka yar inay shiinuhu soo saareen kambanigan hortiina yaalla oo la yidhaahdo deepseek waa artificial intelligence saan idiin sheegana artificial intelligence waxa weeye warbixintii information bay soo ururinaysaa robotna waa lagu program garayn robotadana mustaqbalka waa lagu program garayn karaa system computer super computers waa lagu programming baa lagu samayn karaa macnaha kolka waxani waa aalad cusub hase yeeshee qaybta informationkan ka qaadanayna waxaadna ogaataa anu qiyaastayda maaragtay AI-ga waxaan ku sheegay marka ay maaragtay hadduu ilaah kuu rooya bilaabaan inay iyagu deelaan autonomy waxa la dhaho ama iyagu koodkooda qoran karaan logooda iyo baaswordiga samaysan karaan oo biniaadanka ay banaanka dhigaan shaqooyin badan biniaadanka qabsadaan adduunyada bay la wareegi doonaan adduunyada markay la wareegaanna waxay bilaabi doonaan inay dadka dilaan waadna arki doontaan hadduu ilaah yidha intiina nool haddii shakigama jira aniga AI waxa la dhaho artificial intelligence akhyaaray inuu yahay daabatul ardi kolka waxaasoo dhan maaragtay saan idiin sheegay IT baan ahaan jiray waxaasoo dhan macnaha ciyaalkayga waxaan ka baraa keliya qaybta xisaabta iyo sayniska iyo biologiga waxay noloshooda ka anfaca waxaan u sheegaa waxaan gaalaa qortay dadaan allah iyo rasuulkiisa rumaysnayn badankooda ayaa qoray sidaa darteed wax diina shaqo lagama qaadan karo aan ka ahayn taariikhda yurubiyanka waa laga baran karaa taarikhda afrikaanka waxay kuu sheegaan laakiin waxaan idiin sheegaya marka kuwan shiinaha jeenisku sameeyeen deepseek la dhaho markaysaan carabaabay bilka hor soo saareen ayaa waxaa dhacday hal trilyan waa 1 bilyan oo dollar ayaa ay istaagii kambaniyadii maraykanka AI-gi sameynayay istaagooda dhulka galay maxaa dhacay trump markuu yimid kambaniyada ugu waaweyn ee maraykanka ee sida teknolojiyada sida oracle oo kale ee google microsoft waxaas adu microsoft maaqan ku jirtay laakiin macnaha kuwa la dhaho open AI kuwa la dhaho oo chat GPT kuwa iskale ah
iyo Oracle 77 baa la sameeyey hadduu ilaahay kuu roon yahay. Een, waa si ay fronti ahaan jirtay kabari si ayada gadaal baa laga bedelay waxaan oo dhanba waa nimankaas sirdoonada west galbeedka bilaabay. Ayaa kamariyada Trump wuxuu ugu deeqay hadduu ilaahay kuu roon yahay inuu siin doono lacag dhan 5 bilyan, aan dhehe 500 bilyan oo doolarka Maraykanka ah. Waa half trillion soo ma. Kadib waxaa dhacday Shiinuhu markay soo saareen way ku jeesteen galbeedkii waxay sheegeen inay ka bixiyeen gebigeedaba 5 bilyan iyo badh Iiraan. 6 bilyan xataa ma dhamo. Kuwana waxaa la siiyey 500 bilyan. Shiinihii markuu saas sheegay waxa ay trillion iyo adduunyada ku kharash gareynayaan haddii ay ku sameeyaan in ka yar 6 bilyan ayaa ay kamariyadii high-tech Maraykanku istaagoodii karaash noqday. Maalin kaliya waxay lumiyeen istaaga exchange-ga New York oo la dhaho blue chip ama tiknoolajiyada 1 trillion. Kolka waa la dhaafay waayo shirkadahan galbeedku macnaha wuxuu dhan waa junk. Hub ahaan xataa galbeedka waxaa ka fiican hubka ruushka waa killer, waa dilaa. kolka say tahay kambanigan Shiinaha ayaanan aad ula dhacay hadduu ilaahay idin roon yahay. waxyaalo badanna maaragtay waan ka bartay marka maanta waxaanu yeelaynaa bal AI-gan waxa uu ka qoray taariikhda Soomaalida. waxaadna ogaataa nimankii galbeedka ahaa ee taariikhda Soomaalida hadduu ilaahay kuu roon wax ka qoray waa inaga qariyeeninba. bilmatalan safarkii ay maaragtay adigu ku dhowaad 1500 oo sano ka hor dhalashada nebi ciise calayhi salaam ay waa 15th century BC ay haweeneydii boqoradda ka ahayd Masar ee la odhan jiray Xabshusuud ay ku tagtay dhulkii Soomaalida. anu meesheeda waan tegey Yuusuf weyn qaahirana waan tegey anoo baaray waxyaalo badan baan soo ogaaday oo maanta idinka yaabin doona aad baad ula yaabi doontaan. waxaan idiin sheegi doonaa waxa hadduu ilaahay kuu roon yahay masaaridii hore u taqaanay dhulka buunta la odhan jiray dhulkii udugyada soo maaha iyo dhulkii ilaahiyada laakiin dadka maxaa loo yaqaanay waad yaabi doontaan markaan idiin sheego. kolka hadduu ilaahay yidhaahdo kambanigan shiinayska hadduu ilaahay yidhaahdo DeepSeek waxyaalo fara badan oo galbeedku qariyeen ayay ka qoreen taariikhda Soomaalida. waadna arki doontaan hadduu ilaahay yidhaahdo. macnaha iyagu mayna qorin saan idiin sheegay AI-gu waa information collecting services macnaha warbixinada iyo wixii oo dhan ayay edit la'aan ama iyagoo tafaaftir ku sameyn ama kaa qarin ayay soo ururiyaan kadibna noo keenaan. laakiin galbeedku bilmatal hadda Google oo kale Google waa sensor waxa weeye waa tafaaftir waxa dhan bay jaraan wax anfac la ka heli maysid. Google waa laga guuray haddaad doonayso inaad luqadda ingiriiska haddaad taqaano DeepSeek download garee ama website-yada gal login samee halkaa ka gal haddii kale waxaad gashaa search engine-ka ruushka ee la yidhaahdo Yandex waa kana doortiina yaalla. kolka hadduu ilaahay yidhaha bal waxaan tegaynaa artificial intelligence-ga Shiinaha sameeyeen ee la dhaho DeepSeek aan tegaynaa waxay taariikhda Soomaaliyeed ka qoreen hadduu ilaahay yidhaahdo khayray. akhyaare waa kan kolka waxaan yeelaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo warbixinteenna iyo cilmigeenna ayaan bilaabaynaa. halkan waxaad ka aragtaan macnaha waa kan DeepSeek waa shirkaddan bahalkan weelka ama nimiriga ayaa looga AI wuxuu yidhi hi I am DeepSeek how can I help you today. okay waxaan leenahay marka Lanef Gund Lanef Gund ayaan weydiinaynaa sirjigii buu wadaa AI-ga bal wuxuu ka qoray baan fiirinaynaa. wixii dhan buu soo gurayaa laakiin innagu waan iska bilaabaynaa shaqadiisu wataa. okay waxaa la yidhi okay soo fiiriya AI-ga baa nala hadlayaa waxaan isaan idiin sheegin maalin ka mid a adduunyadu qabsan doonaa overtake buu ku samayn doonaa markii ay self autonomy yeeshaan. hadda biniaadanka ayaa programming ku sameeya laakiin maalin waxaa iman doonta ay hadduu ilaahay kuu roon yahay their own computer code program qori doonaa oo ay autonomy noqon doonaa. autonomy macnaheedu waxa weeye madax bannaani biniaadanka ku shaqaysanaya ay ka madax bannaan doonaan. kolka systemku wuxuu dhahay thought for 42 seconds kulaha 42 second baan ka fikiray haye aan bilowno bismillah. waxaa la yidhi wuxuu systemka yidhi okay so I need to figure out okay wuxuu yidhi waxaan doonayaa marka hore inaan ogaado waxa uu yahay Lanef Gund. systemku wuxuu yidhi xusuuso maqlidda aad maqasheen iyo some documentary laga sheegay iskoolada
ayaa laga yaabaa in laga helo macnaha saas oo kale ah. Okay, waxay systemku wuxuu dhahay marka koowaad bunti waxaa lagu sheegay masaaridii hore qoraalladii qori jireen. Sax bay dhaheen, waa sax. waxay yidhaahdeen Egyptian masaaridii hore waxay la ganacsan jireen dadka bunti, waxayna ka heli jireen waxyaabaha ay ka mid yihiin incense, fooxa, gold, dahabka, ebony, dhagaxa aan dhahay qoriga madow, qoryaha madow ayaa ay ka heli jireen, oo qoryaha geedaha laga qoro kale, geedka galoolka oo kale iyo dhulka Soomaalida ka bixi jiray, iyo exotic animals iyo xayawaan xiise leh sida bahalkan maaragtay jiitaha la dhaho, laakiin inagu haramcad baynu naqaanaa. Haramcadku waa dhowr noocood. waxaa ka mid a jiita, waxaa ka mid a leber, waxaa ka mid a jaguar, waxaa ka mid a black panther, laakiin inagu Kenya waddanka jooga in haramcad u naqaanaa. kolka waxay yidhaahdeen marka dhulka waxay odhan jireen dhulkii ilaahiyada, mararna saasoo kale ayay odhan jireen, macnaha magacyo kale u yaqaaneen. hase yeeshee waxaa la yidhi waa xaggee exactly meesha ay ahayd dhulkii land of Punt. waxay yidhaahdeen taasi waa mystery, waxay u eg tahay that seems to be mystery, waxay u eg tahay wax dadka qarsoon. intani waa iska hordhacay sheegaan, waan ognahay meeshay tahay, waa dhulka Soomaaliyeed ee Puntland ee Hobyo ilaa iyo Berbera u dhexeeya ayaa la odhan jiray land of Punt, ama qiyaastii haddaan dhaho Hobyo ilaa iyo Jabuuti, dhulkaasaa la dhihi jiray. waxa yar haddaan fidana casab iyo musawac dekedaha Eritrean ku dari karaa, dad intaa kama waqooyiyeyso, waan hubaa saas. kolka waxay dhaheen xusuuso dadkii masaaridu waxa ay sawireen oo ay ka sheekeeyeen bay tiri dadkii Punt iyagoo ku sawiray farshaxankoodii. waxay yidhaahdeen dadkaasi waxay lahaayeen muuqaal gooniya oo marar la tusi jiray inay yihiin dad maqaar cas bay ahaan jireen, iyagoo xiran bay yidhahdeen ku labisan dhar gooniya. waxay kaloo yidhaahdeen masaaridii waxay kaloo tuseen dadka dadkii reer Punt la oran jiray inay ku noolaayeen beehive shaped houses on stilts. waxa weeye beehive waxa weeye waa aqalka shinnidoo kale, guryo u eg. guryahaas aqalka shinnida u eg waa aqal Soomaaligeenna hadda, iyo aqalla saas oo kale ah. waxay kaloo yidhaahdeen waxay kaloo deganaayeen bay yidhaahdeen xeebaha iyo Marsh region, dhul biyo ka buuxaan. cajaayib, ogaada taarikhda laga sheekeynaya waa ku dhowaad 4,000 oo sano. marka 4,000 oo sano dhulkan xeebaha iyo dhulkan hadduu ilaahay kuu roon yahay Marshlandka ama dhul biyalo oo geeda ka baxa, waa Shabeellaha Hoose iyo Jubbada Hoose keliya ayaa waqtigan hadda dhulkan saasa. meel kaloo waayo waa meeshan webiyada uga daraan badda dhulkaas, laakiin dhulka land of Punt intaasa loo aqoon jiray. macnaha waa suuragal koonfurta Soomaaliya ee fogna inay tahay sida Jubbada Hoose oo kale. kolka waxay dhaheen saasay ku noolaayeen guryaha sida maaragtay aqalka shinnidoo kale u eg. waxay kaloo yidhaahdeen dadkaas waxay ka sheegeen masaarida hore dadkaasi inay lahaayeen bay yidhaahdeen akhyaaray maar yaa loo akriyaa. waxa weeye maar waxaa la yidhaahdaa malmal, waa malmalka weeye. iyo waxay dhaheen frankincense, fooxa ama lubaanta. waxay kaloo yidhaahdeen waxaa kaloo laga keeni jiray dhulka aromatic resins, macnaha xabag saas oo kale, iyagana waa xabagta cadaadda, xabag kala, xabagahaasoo loo isticmaali jiray bay dhaheen waxyaabaha khuseeya waxyaabaha diinta. meelihii masaaridu joogeen bay fooxana ku shidi jireen, xabagtii waxana ku shidi jireen. marka waxay dhaheen waxyaalahaasna waxay ku gori jireen, waxay ka soo bixi jireen geedo laga helo geeska Afrika sida Soomaaliya, Eritrea, Ethiopia. okay, Ethiopia iyada waa baxday, waayo dhulka Ethiopia la yidhaha weligood bad ma yeelan. kolka waa Soomaaliya, Eritrea keliya isku soo hadhay. waayo masaaridu markhaatiga waxay sheegeen in dadkaasi ay deganaayeen meelo xeeba ah. fiiri, coastal line bay dhaheen, coastal area iyo Marshland. marka Marshland Ethiopia waa yeelan kartaa, dhul biya fadhiyaan macnaha, hase yeeshee xeeba ma lahan. kolka Ethiopia waa baxday, waa Soomaaliya, Eritrea waana Soomaaliya weeye. waxay kaloo yidhahdeen dad badan baa yiri iyagana maybe Yemen bay ahayd iyo badda cas. Yemen iyadana koonfurta Yemenka iyo geeska Afrika waxaa loo aqoon jiray marmar dhulka Yemen, labadaba Punt waa la oran jiray. hase yeeshee meeshan hadda loo jeega waa dhulka Soomaalida ee geeska Afrika, gaar ahaan dhulka xeebaha badda cas ilaa badweynta Hindiya. waxay kaloo macnaha eegii baan wadanayaa. waxay dhaheen macnaha
ereyadii bay ka hadlayaan waxay dhaheen marka waxaa dhacday inay boqoradii faraaciinta la odhan jiray Hatshepsut bay yidhaahdeen inay ganacsi weyn la lahayd macnaha shaqo ganacsi inay u tagtay Punt kadibna meeshoodii ay wax ku caabudi jireen waa meeshan hadda Temple of la dhaho Relief la yidhaahdo macnaha daaralbaxri baa la yidhaahdaa waan tegey anigu waxaan oo dhan baa ku sawiran waxay yidhahdeen macnaha depicted the journey sawirkii baa ku dhegan hadduu ilaah kuu roon yahay waxyaabihii laga keenay waxyaabahay soo sawireenna waxa weeye waa kan hadda hortiina yaalla bilmatalan waxyaabaha yaab kale waxaa ka mid ah khiyaaray horaan ku sheegay soomaalidu dhowr ummad bay kasoo kala jeedaa ummado cascas baa ku jira ummado cad sawirkan hadda hortiina yaalla waa dadkii soo arkay soomaalidii noqleed khiyaaray marka 1000 sano ka hor halkani waa dadkii soomaaliyeed saad aragtaan waxa garateen ma aha ninkan soomaaliga iyo ninkani waxay wadaan geri ninkani waa maariin waxaad ogaataa dadkani waa dadkii farshaxamiistaha ee la socday haweeney Hatshepsut waxay ka soo sawireen weeyaan kolka ninkani waa Soomaali kanna waa Soomaali dadkii hore waaya Soomaalida horeeya Soomaaliya ma jirin markaas magacan Soomaal wax hore dhaqatadii dambe ayaa badatay laakiin Soomaalidu boqol qodood bay ahaan jireen wax kasta ay ahaan jireen casharada hore uga sheegaytaa kolka geri bay wadaan kolka ninkani waa light skin waa Soomaalida cadcad mucjiso okay kanna wuxuu wadaa baan u malaynayaa fooxii iyo wixii buu wadaa iyo geedihii buu wadaa macnaha frankincense waa fooxii iyo malmalkii iyo wixii buu wadaa kanna wuxuu kala wadaa halkanna wuxuu ku wadaa baabuun daanyeer buu wadaa soo ma aragtaan waxyaabahay ka ganacsan jireen weeyaan okay halkanna kanna wuxuu wadaa wuu yara cas yahay fiiriya kanna waa madow yahay kanna waa maariin kanna wuxuu wadaa yara casi wuxuu wadaa foolmaroodi soo ma aragtid xayawaan kalena wuu wadaa isagana baabuunkii oo afarta ku socda kanna waa baabuun taagan daanyeer baabuunku waa nooc ka mid a daanyeerada laga helo dhulka Soomaalida kolka ninkan kalena labadanna waxay wadaan kanna wuu yara cas yahay fiiri waa Soomaali kanna waa Soomaali yara maariina ama madow xigeena isaguna wuxuu wadaa geedkan hadda idinka sheekeynaya macnaha ebony baa la yidhahdaa ayay wadaa soo ma aragtaan marka waxay kaloo wadaan harimacad noocan ama jiita ama libar adigu ku yahay waa harimacad astaanta Soomaalida waa macnaha kolka safarkii saasay ku sheegeen kolka waan aragnaa hadda sarifkii aan dhehe sawirkii marka waanu sii wadaynaa waxay yidhahdeen marka animalka ay sawireen ay dib masar ku keeneen waxaa ka mid ah bay yidhaahdeen baabuun daanyeer iyo daanyero baabuuna nooc ka mid a daanyerada iyo daanyero bay yidhaahdeen oo laga keenay Buunti waxay yidhaahdeen baboons are native to the horn of Africa baboonku waxa uu asliyan ku nool yahay geeska Afrika keliya laga helaa macnaha iyo Southern Arabia Venezuela waa macnaha dhulkan Cumaan iyo hadduu la ku roon Yaman iyo kolka weli waxay ka sheekeynayaan macnaha ereyada laakiin waan isla garanay marka waxay yidhaahdeen waxay ugu horreysay ee laga sheegay yidhaahdeen in dadka boqortooyada Buunti la odhan jiray macnaha dadkii Buunti dhulkii Buunti dadka magacooda loo yaqaano uu soo socdaaye waxay yidhaahdeen wuxuu ahaa wax muhiima in markii ugu horreysay waqtigii ugu horreysay taariikhda lagu qorayna waxay ahayd bay yidhaahdeen waqtigii la odhan jiray Old Kingdom Masaarida 2500 oo sano BCE soo ma aragtaan waa waqti hadda laga joogo 4500 oo sano waa Nebi Ibraahim bay 500 oo sano ka horreysa waqti qadiimiya ayay dadka hadda aynu hadda Soomaalida u naqaanaa ee dadka Buunti la odhan jiray waqtigaas ayaa ay joogeen kolka waxay yidhaahdeen waxaa kaloo yidhaahdeen waxaa laga yaabaa inuu maaragtay ganacsiga ka dhexeeyey dhulkii Land of Buunti la odhan jiray iyo masaaridii hore inuu maaragtay joogsaday ama uu hoos u dhacay maadaama bay yidhaahdeen xaaladda siyaasadeed ay isbedeshay waa waddanka Masar macnaha masaarida markaa waxay kala bedeleen waxa la dhaho Old Kingdom iyo New Kingdomka waa tan qoyskan ala fircooniyo weeyaan iyo waxaa kaloo bilaabay tan kale 18 dynasty waaweyneda Hatshepsut hadda ka sheekeynay waana tatiri markay meesha tagtay waxaan tegey dhulkii awowyaday kolka dadkii Soomaalida la odhan jiray Buunti ayaa Masar qabsaday oo inqilaabay taasaana keentay isbedelka soo ma aragtana khayray kadib marka saasay yidhaahdeen markaas waxay yidhaahdeen macnaha saasuu ahaa
linguistahana okay, waxay yidhi kaloo yidhi xagga luuqadaha marka caddaymaha xagga luuqadahana waxay yidhaahdeen angal kale dhinac kalean ka fiirinayna bay yidhahdeen oo caddaymaha xagga luuqadaha qaar waxay yidhaahdeen magaca bunti macnaha waxay ku xiriiriyeen meelo magaca oo ka tirsan area gobolka geeska africa tusaale ahaan bay yidhaahdeen in the Somali language there is region kale Puntland bad fiiriya waa AI-giiba wuxuu ku leeyahay wuxuu soo qaaday macnaha wuxuu yidhi hase yeeshee ma hubo inuu yahay that modern designationka macnaha magaca cusub ee loo bixiyey Puntland inuu yahay bay yidhaahdeen mid xidid ku leh ama asalkiisa kasoo jeeda waa dhulkii Punti or maybe waxay dhaheen waa coincident macnaha ama waa wax laga yaaba inay isku mid u noqdeen hase yeeshee boqolkiiba boqol innaga hubna dhulka maamul goboleedka Puntland magacoodu wuxuu ka yimid magacii hore loo yaqaanay gobolka ayaa Punti sidoo kale masaaridii hore waxay dhulka Punti macnaha ku sheegi jireen inuu yahay xagga koonfurta kaasoo run ahaantii la siman geeska Afrika marka way iska cadday inuu geeska Afrika ahaa taa waan gudbaynaa horaan ka soconaynaa marka weli waxaan ku jirnaa macnaha AI-gani bal wuxuu ka qoray soo ma aragtaan waxani waxa weye ku cusub weye macnaha informationkan anu hore uma arag aan idiin soo wado kolka intan hadda doodii weye meeshuu ahaa laakiin inagu waynu ognahay meeshuu ahaa kolka waan ka soconaynaa waxay yidhaahdeen dhulkii Puntland la oran jiray wuxuu ahaa dhul muhiim u ah ganacsigii ay la lahaayeen saaxiibadooda ganacsiga ee masaaridii hore waxayna yidhaahdeen waxaa lagu yaqaanay macnaha inay soo sabalay-gareeyaan ama ay u soo dhoofiyaan ama ay keenaan mastarka luxury goods waxyaalo badan oo maaragtay raaxa ahaa saas oo kale oo ay ka mid ahayn bay yidhaahdeen frankincense fooxa maar malmalka dahabka alwaaxa aan idiin sheegay foolmaroodiga iyo xayawaan maaragtay aad iyo aad maaragtay xiise u leh saas oo kale ah marka intaas waa intii hore aan aragnay marka inta badan dadka maaragtay scholarska wax isku raaceen inuu geeska afrika taa annaga ogba cidna weydiin mayno waxay kaloo dhaheen flora amfuna iyo iyadana fooxa laga keeni jiray andhehe geedka malmalka yaa dhulka soomaalida laga keeni jiray iyo nooc daa'irada ka mida markaas iyo maaragtay noocan kale iyaguna waxyaalo fara badan waxaan species macnaha geedaha iyo waxaas ah oo keliya laga helo geeska africa tanna waa artskii aan tusayey boqoradii hore masaaridu inay derbigeeda ku sawirtay dadkii buunta dadkay ahaayeen waana sawirkan meesha ku yaalla aad aragtaan okay maasha allah kolka taas waa taas marka haweeneydan waxay tagtay dhulka maaragtay waktigaasay tagtay waxaa lagu sheegaa inuu ahaa 1493 ama 1500 oo sano ka hor dhalashadii nabi ciise calayhi salaam soo ma aragtaa kolka waana wax cad weeyaan marka bal waxaynu fiirinayna marka waxaa la yidhi macnaha ganacsiga hoos u dhacay taas weeye tani waxa weeye daralbaxri waxa weeye waa meesha museumka oo masaarida ku taalla oo yaalaan maaragtay taariikhda haweeneyda haddana waa bunta yidhaahdeen dhulkaas taa waan ognahay marka hadduu la kuu roon yahay macnaha intaasay macnaha sheegeen hase yeeshee waxaad mooddaa waxaan mar hore soomaaliya maanta arkay macnaha mar hore barnaamijkaan arkay yaan fiirinayaa maaragtay bal ku kalenu raadinna la yidhaahdo wax kalean raadina name Egypt ay u taqaanay punt balkaale waan fiirinayna hadduu la yidhaahdo waayo waxaan arkay masaarida hore magac bay u taqaanay dadka dhulkaa degan magacaasaan doonaya inaad ila aragtaan okay waa kan khiyaaray ancient Egyptian text oo laga helay qoraal laga helay masaaridii hore oo derbiyada waxa ku soo wari jireen waxay yidhaahdeen arrintan marka horaan doonaya inaan video uga sameeyo hase yeeshee waxbaan sugayey waxaa la yidhi
hieroglyphic waxa weeye waa waxay masaaridu qori jireen shimbida raadkoodii fartoodii hore weeyaan. hase yeeshee qarnigii sagaal iyo tobnaad ayaa kowrka la jebiyey oo la akhriyey. kadibna waxaa la yidhi dadka masaaridu maxay u yaqaaneen baa la yidhi hadduu ilaahay ku roon yahay dadkii dhulkii buunti la oran jiray dhulkii ilaahiyada dadka jooga maxay u yaqaaneen. waxaa la yidhi dadka jooga waxay u yaqaaneen fiirsada halkan bowe weye bowe ereygaa ma aragtaan soo ma aragtaan waa bowe w waa silent. maxaan ku arkay tan waxaan ku arkay mid kale oon lahayn aan lahayn m e iyo t-ga aan lahayn oo masaaridu hore u yaqaaneen. kanna wuxuu ahaa kanna wuxuu ahaa ow marka wuxuu noqonayaa macnaha bowe dhulkii bowe u yaqaaneen. so macnaha haddana gobolka puntland ee ereyadaas oo ereyga bowe ama ereyga soomaaliya soo ma aha dee walaal weeye macnaha bowe waa meesha ka timid soomaaliya buu kale waa walaalkii soomaalida. xamar iyo koonfurtana laga yidhahdaa abaaye abowe soo ma aragtid. reer puntlandna waxa waaye aad bay ka saareen bowe yidhahdeen waa walaal. marka faraacinta hore dhulka waxa u taqaanay hadduu ilaahay ku rooyay yahay aan dhehe dhulka buunta u yaqaaneen laakiin dadku waxay u yaqaaneen hadduu ilaahay ku roon yahay bowe. anigu waa say ila tahay macnaha meel kalena waan ku arkay isagoo ereyga bowaha. kolka waxani kan waa Tutmosis kuwan waa 18th century waa kuwii sahuure magacyadii weeyaan waa reer karrayi horaan ugu sheekay video hore boqorradii masaarida ee 18th century iyo 17 dynasty 18 dynasty la oran jiray kulligood waxay lahayn magacan karrana ummad maanta la baxda Soomaaliya keliya ka jirta oo hadduu dad badan ba rumaysan in qabiilka garruhu uu karraha ka mid ahaa qowmiyadda ahaa hadduu ilaahay ku rooy saas oo kale waxaa jira ceel karraa jira oo deegaanka Soomaalida hadduu ilaahay ku rooy magaalo ceel karra la dhaha jirta qabiil Soomaaliya jira iyagana karanla lagu dhaho garre waxaan oo dhan Soomaalidu hal meel bay kasoo jeedaa. marka macnaha marka magacaasa loo yaqaanay masaarida hore waxay dhulka u taqaanaysaas waxay kaloo haweeneyda soo sheegtay in boqorka dadkaas la oran jiray bowe la oran jiray baarahu okay baarahu kan dad nimankii faransiiska ahaa xarafka biida fa bay u qori jireen marka anigu faaraxu baan u qaatay ayam talow ma dagaalkeenu ciyaalka maqlaynaa tolow xalimihii faarax may haddana boqorro ka dhigeen inta aan ku darsaday. kolka waxaa la yidhi wuxuu ahaa baa la yidhi hogaamiyaha wuxuu ahaa baa la yidhi buuntu ahaa magaciisa waxaa la oran jiray baa la yidhi faaraxu ama baaraxu. qoftii xaaskiisana waxaa la oran jiray baa la yidhi ati soo ma aragtid. sawir baana laga qoray macnaha ay masaarida ka sameeyeen haweeneyda saas oo kalea tu kalena way sameeyeen la oran jiray xadiya laakiin boqorkan weligii mayna aragin la oran jiray baaraxu waana faaraxu buu waana ila egyahay faarax buu ila egyahay. kolka waxaa la yidhi macnaha maxay ahayd muhiimadda macnaha way muhiim ugu ahayd buunti maxay tahay sababtay dhulka buunti muhiim ugu ahayn masaaridii hore waxyaalahaasay kasoo dhowsan jireen iyo saas oo kalea. kolka macnaha intaas akhyaari waa intaan macnaha ka helay hadduu ilaahay idiin rooya macnaha dhulkaa la oran jiray land of buunti macnaha waxay masaarida hore u taqaanay dhulkii udugii ilaahayd u yaqaaneen. sidoo kalena dadku waxay u yaqaaneen erey u soo dhow bowe kole ereyga bowena waad ogtihiin soomaalida ereyadaas puntland maanta degan ayaa isticmaasha. marka macnaha hadduu ilaah ku roon yahay information badan baa jira weli taarikhdan daba soconnaa laakiin anu waxaan idiin sheegay barnaamijyadii hore in soomaalidu khayri jirta ugu yaraan 12 kun oo sano taa shakigama jira aniga. soomaalidu ummad ka mid waxay ka mid yihiin ummadaha ugu qadiimsan adduunyada waana ummad ka mid a ummadaha iyo ummado fara badani kasoo farcameen soo wax garateen maa qaaradda africa ku kala faafay iyo qaaradda asia iyo xataa koonfurta yurub. griigii hore waxaa jiray dad madooba la oran jiray bunti laana bunti ka yimaadeen asalkooda hore buu griigan ku arkay google translation baan isticmaalay intaasaan ku helay maalinkii dambaan ku noqday bejkii waaban waayeba. kolka macnaha weli waan raadinayna insha allahu taariikhda griigan ka raadin doona hadduu ilaahay yidhaahdo dictionary english iyo griiga yaan onlineka ku arkay ama AI-gan griig ku weydiin doonaa saas oo kale waan ogaan doonaa waxaasoo miiran. marka intaasaan idiin sheegay marka waxa waaye macnaha qofkii wax baranaya taariikh saas oo kale gaar ahaan ilmaha xisaabta iyo haddaad doonayso xisaabta inuu adu kaa caawiyo arday college tahay amaad doonayso amaad macalin xisaab tahay AI-gu aad buu kuu caawinayaa. kolka ka anigu aan aaminana macnaha dee aaminaad ma jirta ilahay rasuulkiisa la aaminaayay laakiin kan macnaha rumaysanahay inuu ugu dhow yahay runta oo waxyaalo badan laga garan karo on waxyaalo badan la qarin ama aan maaragtay
misleading ama aan meel khalad ku hogaaminayn waa DeepSeek. Waa kuwan Shiinaha oo hadda isgadaya. Iyaga naftigooda markay awood helaan, waxay u noqon doonaan maaragtay controlkii iyo inay dadka controlaan. Laakiin kuwa hadda ugu dhow maaragtay hadduu ilaahay kuu roon yahay ee wax laga baran karo waa kuwaas Shiinaha sameeyey DeepSeek la dhaho. Akhyaari fikirkiina waan soo dhaweynaynaa. Waxaa kaloon ka akhriyey intaana ka bixin barnaamij kaloon AI-ga ka helay. Waxaa la yidhi markaa boqoradda faraacinta Hephaestus ay booqanayso dhulka, waxay yidhaahdeen meel dhulka Allaahna buunta ka tirsan oo dhinaca koonfureed waxaa ka jiri jirta bay yidhaahdeen hadduu ilaahay kuu roon yahay boqortooyo la odhan jiray Boni. Boni waa boqortooyadii Boonta. Shaki igama jira aniga. Dadkan Soomaalida beelaha yaryar maanta u naqaano saasoo kale ah waa dadkii asal Soomaalka ah, waa dadkii laga soo farcamay, waana dadkii ugu horreeyey ee Soomaalida ahaa ee hadduu ilaahay kuu roon dhulka xukumi jiray. Waxaa suuragal ah inay cuquubooyin badan geysteen. Maaragtay saasoo kale ah waa ani fikirkaygun. Kolka taasa iyadan ka mid ah. Marka dadka Soomaalidu waa dad taariikh leh. Waxaan rajeynayaa khiyaara inaan maanta wax idin tusay ood ka faa'iidaysan doontaan. Intaan kulmi doono waa Sayid Cabdiraxmaan Sheekh Xasan oo idin leh. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.